بسم الله الرحمن الرحيم magacayga waa Cabdullaahi Sheekh Axmed Sheekh Maxamuud ku magac dheer Carafaad waxaan soo booqday garoonka ay ku ciyaarayaan laba kooxood oo Soomaali ah aad baan runtii uga helay oo la dhacay sida isjacaylka leh isku xidhnaanshaha leh isfahanka leh israali gelinta leh ay ma garanaysaa ay u ciyaarayaan muhiimadda loo ciyaarayo waa in dadku ay ka dhaxlaan isjacayl inay caafimaad ka dhaxlaan xagga qalbiga iyo caafimaad jidhkaaba waayo way dhisan yihiin dhalinyarada kale way ka duwan yihiin dhalinyarada mukhadaraadka iyo waxyaabaha kale ku mashquulsan aad baan runtii oo la dhacay waxa kale sida halkan ay dhalinyaradu isugu calool furan yihiin isugu qalbi furan yihiin waxaan jeclaan lahaa inay ku bedelaan ay horeyna u sii wadaan ay bedelaan society-ga kale iyo bulshada kale ee Soomaaliyeed aan ciyaari karin ee ku mashquulsan waxyaabaha siyaasadda qaloocan iyo reer hebelka ku mashquulsan inay ma garanaysaa ay bedeli karaan baan aad ugu rajo weynahay maanta ciyaartu ciyaar aad u fiican bay ahayd hadda waxay maraysaa 2-1 kulay dad iska garanaysaa marka garoon imaato koox baa taageeraysaa kooxdan anigu taageersanaa laba gool baa lagu leeyahay kuwa kalena ma garanaysaa hal gool baa lagu leeyahay marka insha Allah waa semi final waxaan jeclaan lahaa inay soo adkeeyaan sida ciyaar fiican bay soo bandhigeen kuwa hadda soo badiyayna final bay tagayaan sidaan aaminsanahay waxaan jeclahay ayagoo naga badiyay inay haddana guuleystaan ها dhalinyarada markaan ka hadlayay kuwan ma ahayn kuwan dhisan sida ay macni dhalinyarada wanaagsan ha ciyaartii baa wali ugu socotee warka leeh dhalinyarada wanaagsan wali maanan u soo waxaynin oo waxaan eegayay dhalinyaradii wadankii iyo kuwan aan isbarbar dhigay marka waxaan idhi anigoo iska hadlaya waxaan idhi intaana dhex iman qurbaha darbaan xidhan jiray asturan dhafoorna ma xiiran jirin de aniga iska ma hadlayay de waxaan ka hadlayaa waxaan iska soo qaadayaa inaan dhalinyaradii aan de macni la darbaan xidhan jiray asturan dhafoorna ma xiiran jirin hadeerse dhaqaaqayo inaan dhumay waa hubaal surwaalkii dhaadhaciyo baryaha uu dhaafayo asagoo dhacay baan haddana dhagaatiga sii hayaa wax haba dhacay ma iska daayaan ama marka kor ku xidhaan ya asagoo dhacay baan haddana dhagaatiga sii hayaa dhalinta qaar baa misana dhagtiyo bishimahaba duran sidii dharuq iyo dhurwaaga loo socdaa waxa leedahay waxaan is dhahatalow ma dhabarkiyo jeeniga iyo ragii dhinac baa qalalay war ma naafa baad leedahay saas loo wada socdaa ilaahu naciim marka dhalinyarada wanaagsanna waa soo wada dhexday ku soo jirtaa insha Allah ta'ala. Yeah, hi, my name is Abdi Mohammed, coming from Buffalo, New York. We've been here for the past days and we're up at the semifinals, and if we win today hopefully we'll be at the finals tomorrow. And yeah, we're a team like the main thing of our team is communication and moving the ball as a team together, going up the field back and forth, then everybody dropping and basically working as a team, and that's what got us here at the semifinals, and hopefully we'll win us the title tomorrow. Toronto is beautiful, man. I like it. A lot of places, a lot of stores. Reminds me of Africa, actually. Yeah, that's good. Thank you. Yeah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Mohammed Ibrahim, Buffalo Keimane. We're here at Toronto today for the semifinals, and if we win, hopefully we play finals tomorrow. We're good. We're a good team. We know each other. We play good. Okay. The management is good. Everyone knows their position. They play good at their spot. And we all know our chemistry. We're all good. They were all good. They were all competitive. There was only one team that was good that we couldn't beat. It ended 2-1. And I think hopefully we can go to finals tomorrow. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd ilaah baa mahad iskale oo inoo suurtagelay inaan ka soo qayb galno tournament-gaanito oo Toronto Canada ka dhacayo. Alhamdulillah, aad iyo aad waxaan ugu mahad celinayaa maamulka Soska Week Toronto, Sheekh Maxamuud iyo Liibaan aad baa ugu mahad celinayaa iyo Somali National TV maadaama ay fursadan inoo siisay maanta inaan wareysi nagala yeelato. Alhamdulillah, ciyaaro badan ayaan ka soo qayb galnay, tiimo badan ayaan la soo ciyaarnay. First game waxaan ku badinay alhamdulillah 5-1 aan guusha Western New York nagu raacday anagoo matalayna Western New York. Second game aan ciyaarnay 2-1 ayaan ku badinay alhamdulillah.
Thursday game also 3-2 ayaan ku badinay maantana gamekan u nimid aan ciyaarano waxay tahay semifinalka insha Allah maanta hadaan badino waxaan ku hubweynahay tomorrow inaan finalka ciyaarno aana qaadno haduu Ilaahay idmo waxaad iga warantaa magaalada Toronto sanadkan tournamentigan Soomaaliya ay soo abaabulayso idinka waran diyaar garow u soo gasheen barnaamijyada training iyo inaad teamka isku keentaan wallahi horta alxamdulillah kullay tournamentigan laftirkiisa Western New York ahaan ayaan ku soo soconay marka maadaama oo anaga late taana laga soo wargeliyay adi 1 week ayaan ciyaartooydeena from Buffalo ay u badanta ciyaartooyda badan ciyaarayso 1 week only aan ku nimid laakiin alxamdulillah ciyaartooy aad iyo aad u dhisan aad iyo aad hatta future-ka Soomaaliya qaranka hatta wax weyn u tari karta ayaan wadnaa ayaan leenahay halkaan kullay maamulka isboortiga Soomaaliyeed xiriirka kubadda cagta waxaan ku wargelinaynaa inay nala soo xiriiraan ciyaartooy aad iyo aad u tayo leh ayaan meeshan ku heynaa kullay yeesan qanin before waan ka soo gudubna xaaladii hore in Soomaaliya oo xoogaa graduation ciyaartooyda lagu soo qaadi jiray hadda ciyaartooy aad iyo aad u tayo leh ayaan wadnaa xag hore dhalis ha noqdo qad dhax ha noqdaan difaac ha noqdaan intaba waan heynaa intaas ayaan idinku wargelinaynaa maamulka meel walba aad joogtaan kuwa Muqdisho jooga kuwa Yurub jooga kuwa Olsaniyo oo Mareykan laftirkeeda ku nool intaas ayaan ku wargelinaynaa wallahi aad iyo aad u wada shaqeyn horta Rochester New York laftirkeena xiriir aad u weyn ayaa naga dhaxeeya xaq dhaqaalaha noqoto xaq sport ha noqoto xaq taageero intaba dhaqaale aad u sareeya ayaa naga dhaxeeya iyo xiriir weyn ah sida Abdullahi Sharif oo kale oo nin aan la soo koobin karin halkaan ku soo qiyaasi karin ninka kaliya oo number 1 u dhaqdhaqaaqa Rochester New York waaye kulli alxamdulillah way jiraan odayaal kale laftirkooda oo sportiga jecel laakiin ninkaas ma qiyaasi karno wallahi intuu shaqo ka hayo Rochester New York su'aasha ugu dambaysa ciyaarta Brito finalka oo maanta idinku aad filaysaan dad galsan inaad final imaanaysaan ka waran rajo maxaa idinku jira ciyaartaas wallahi kulli ciyaar inkastoo cad imadu ay tahay waxaan ku hami weynaa annaga aan uga nimid West New York koobkan inaan hanano oo West New York aan geeno haduu Ilaahay idmo maadaama halkan igala shaqeynaya coach aad iyo aad igu qaali ah sida coach jaamac oo kale oo wato dhalinyarada hatta badankooda hadda West New York ka socdaan coachkooda jaamac oo ah FC Somali Bantu team ah wallahi aad iyo aad ma u maleysan karno kulay alxamdulillah inaan qaadaynan u badan tahay 100% hadaan galabta aan soo gudubno insha Allah waxaa sharaf weyn inoo ah anagoo ah dhalinyarada Toronto inaan ka soo qayb galno ciyaartan aad iyo aad ka u xamaasada badan teamkan oo Toronto ka socotay teamka ka timid Buffalo ciyaarta hadda waa half time labada team weerar celis bay ku jiraan wali resultiga wixii ka soo baxay half time kana arkeynaa labada dhinacba waxaan leenahay kooxdii soo baxdo guul wacan koobka ayaga oo rajeynayna wala labada team ugu adag ما شاء الله سوف لبض دينا تيمم كان تيم بافلو هو تيم آد اسكو حرن دلنيرتان ودلنير سو أرورستي جود بلايرز كجرو وأيقنا آد وأضاق دفاع إلى ويره سوف جيب كليجا وحوه هاي ليجي أركو ونكسناي بس دن لاسيه نوداونا هذا نوداونا كان آد وعن وأنا كوريا أخني مدام أمر والبوسو داوش تجينا مال والبان جوجنا بسم الله الرحمن الرحيم مركواد مجيء والليبان محمود جمعالي waxaan ka soo jeedaa gobolka Banaadir gaar ahaan xaafadda hodan KBB aniga waxaan u ciyaaray kooxda Banaadir FC Somali Week Toronto aad ayuu u socday maadaama dadaalo badan waxyaabo badan ayaan sameynay maanta waxaan ciyaareynaa kulankeennii semifinalka ciyaartana way ay socotaa insha Allah waxaan rajeynaynaa guul inay ku soo dhamaato koobkan wuxuu ahaa koob isdhexgal bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan Soomaalida Toronto ku nool dhamaan ay ka soo qayb galeen dhalinyarada youthka ma sha Allah aad buu u socdaa waxaan rajeynayaa finalka biri inaan ka qayb gali doono insha Allah haduu Ilaahay raali ka yahay waxaan ku soo gabagabeynaa dhammaantiin waa idin salaama wadajir guul ayaa idin rajeynaa السلام عليكم magacaygu waa Saciid Ismaan Xirsi ku nool Toronto
Canada. Actually waxaan ahaa taageerayaasha waaweyn ee kooxda Banaadir koobkan oo ah kii loogu talagalay Rabadaantii bilaabmay ilaa hadda si fiican buu u socdaa maanta waad arkaysaan kooxdaydii baa ciyaaraysa Banaadir oo hadda bilaabantay ciyaartii koobkan horta marka ugu horeysa waxaan u mahad celinayaa dhammaan Soomaalidii soo qaban qaabisay kubaddana waxa loo ciyaarayaa in waa isdhexgal bulshadu si ay isku barato ma hadda wax qabyaaladii waxaasa ilaa haddana si fiican buu u socdaa kooxdaydana si fiican guul baan u rajaynayaa وكاست أد بني ولا سلام ينتي ساعدها إنه وليفر دنيرتو أد وشقين سي هذا نوش صبحي وكل شقتي هذا نعيار سي أد به هذا نصف عم بوقبصونتي الحمد لله إلهي ما هذا وسورة جدي واحد وربشة وكذا عينا من شرته إلى هذا صف عم بوصعدا قبل الله ده مرة كان ده ودنا ولا قريب ميد الله مرة كان الحمد لله وانا نصف عم بوصعدا بدي ده سوق من قابسي أو أدار كسر حاجة فديا صف عم بوضان aad iyo aad wallahi wax dhibaato oo laga sheeganayo ma jirto kooxii oo dhan aad bay ugu qanacsan satisfied kooxdii hadhaanada way hambalyanaysaa sanadka dambe way soo noqonaysaa insha Allah anagu hadaan maanta hadnana alxamdulillah waan leenahay hadaan guuleysanana alxamdulillah si fiican baan u ciyaarnay waayo maanta waxaan soo gaarnay semi final alxamdulillah waan leenahay hadaan hadna maanta sanadka dambe anagu adag baan imanna kooxda naga badisayna hambalyaan leenahay bismillaahir rahmaanir rahiim ana magacay Liibaan Shariif oo ku hadlay magaca guddiga Sooska waxaan rabnaa maanta alxamdulillah ciyaariga gaba waayay waxay ciyaar semi final la ciyaaraya maanta laba ciyaar dhacday ciyaarta koowaad waxa ciyaaray kooxda Hamilton oo ka timid nawaaxi Toronto iyo kooxdii Banaadir oo magaaladan ciyaartaas waxay ku dhamaatay 2-1 oo kooxda Hamilton ku badisay haddana saa u jeedin waxaan fiirsanaynaa ciyaartii New York oo dharka buluug wadata dharkan gaduudkana waxa wada kooxda Iftan oo ciyaartan hadda ay half time ay ku dhowdahay oo 0-0 ay marayso wali gool iska dhalin marka ciyaartan ninkii ciyaartan badiyo waxa tagay final hadda Hamilton final fadhiso waxay sugay labadan koox kii baday sugay marka bari waxaan u talagalnay horta saa hore idinku sheegnay ciyaarahan 17 team ka soo qayb gashay iyadoo waxba dhicin hadda rabin ay intidin ku akhriyo ciyaarahan waxa lagu bixiyay 9 jaallo iyo 3 gaduud laba ciyaartooyna waa la sisbandhigay ilaa hadda intaasaan guddiga farsamada uu soo gudbiyay waxa kale oo aan rabnaa inaan idin sheegno berito waxa dhacay garoonka weyn oo Centennial Park la aadaa yaraa leehada ciyaartii ma aragtay aan ku jirnaa adka duugo go'ayo bari Centennial Park aan aadayna garoonka weynaa waxaan waa maalintii Ciid al-Fitr nawarabna barnaamij Ciid al-Fitr ee ciyaarihii in la isku gabagabeeyo garabkay waxa ay tahay Abdulqaadir Joof oo asagana ah gadoomiye ku-xigeenka ururka Sooska marka ciyaaraha track and field maxay yihiin track and field waa ciyaaraha fudud 3 stage oo kala qaybinay stage koowaad waa ciyaarihii 100 mitir waxa ka qayb gali doonto 8 ordaad ah ciyaarta 400 ku xigto 400 waxa ka qayb gali karto iyadana 8 ciyaartooy ah markaas ka bacdi wax yar bareegan qaadanayna insha Allah markaas hadana waxa la bilaabo ciyaartii 800 mitir iyadana waa kadalika hadana 1500 ku xigto hadana bacdi 1500 relay wax la dhahay relay waxa waa isku dhiibka oo 400 asagana waa ku jira waxaan ugu dambeeyo mid la dhahay bootinta long jump la dhahay ugu dambeeyo marka bari barnaamijka track and field asagoo kooban oo bootinta waa taqaaniin bootintii oo dadkii ciyaarahan ku yaqaan shay kara bootinta waa long jump la long jump marka waa bootinta dheer oo laga rabo qofka ma aragtay inuu aad isku day inuu meel fog ku dhaco inuu meeshan ka buu meel fog ku dhaco loogu talagalay markaas ka bacdina wacdi masaajid Qaalid Muwadiida waxa noo imaanay Sheekh Bashiir iyo Sheekh Abuukar iyo shuuqo kala waaweyn oo magaaladana waxay noo gudbinayaan barnaamij muxaadaraad ah inay gudbinayaan marka kaas ka bacdina ma aragtay waxaan biloobaynaa insha Allah ciyaartii kubadda cagta waxa ciyaari doona bari kaalinta saddexaad ciyaarta kaalinta saddexaad biloobanayso kaalinta saddexaad waxa galay kooxda magaaladan aad looga jecel yahay gala Canada iyo waxa ciyaaray kooxda Banaadir labadaas kii baday kaalinta saddexaad ciyaarta final kana saa hore idinku sheegnay Hamilton hadda final fadhiso
iyo waxa ciyaaray labadan kooxdii badiso ciyaaray marka tomorrow barnaamijkaas u sameeynay iyo waxa kale aan rabnaa ceremonial in koobkii la bixin lahaa koobkii waxa bixin doona insha Allah hadduu Ilaahay cilmigeena gaarsiiyo wasiiro badan oo wadankan jooga bixin doona xildhibaano badan iyo councilors badan bixin doona oo u sii dheer madaxdii ma aragtay community-yaashii magaaladan iyo jaaliyada magaalada odayaashii magaalada joogaan ciyaartooy hore oo kubadda cagta ciyaari jirtay oo u naqaano seera iyagana waa bixinayaan marka maalin oo aragtay maalin farxad weyn inoo tahay bari also waxa ku jira oo gooni ah barnaamij culture ee caruurta because since ay tahay Ciidul Fitr waxaan sameyn doonaa barnaamij oo u talagalnay caruurta inay meel ay ku ciyaaraan oo sameeyeen gooni ah iyo wiifo iyo adduunyo waxyaabo badan caruurta loogu talagalay waxaan gali dadka waaweyn looma qabanayo caruurtana waa loo qabanayaa iyo waxaan u sameynaynaa barbecue waxa way cunto u gaar ah ma aragtay masaajidka Khalid bin Walid noo soo diyaar insha Allah khayr ka siiyo iyo community-ga Madeenta Mahad Yusuf marka intaas idinku talagalnay bari insha Allah nagala socda wixii iyadoo ma aragtay full waxa inta mahad celina wariyihiina weyn oo magaalada Toronto Muxuddin Jaamaci TV SNTV iyo also Maxamed Buzuri oo asagana xidigaha iyo website-ka Sooska operate gareeyo labadaasna waxaan leenahay aad iyo aad u mahadsantihiin saan noo daba socoteen ciyaarahan aad u gudbisaan sida live mubaashara u gudbisiin idinkana waa idin mahad celinaynaa marka insha Allah bariya barnaamijkii buuxa u sameeynaa insha Allah assalamu alaykum